makarafoonada bannaanka intii lagu wada rakibay waxaa loogu talagalay aadaanka iyo faraa'ilka dadku inay kala socdaan laakiin taraawiix dad bannaan jooga gudaha masaajidka in laga tukiyo looguma talagelin asalku waa in makarafoonka bannaanka laga damiyo dadka taraawiix iyo tahajudku kaba sii daran waxaan maraynaa haddaad habeenkii qayb dambe soo kacdo oo 10ka dambe la gaadho gurigaaga kuma tukan kartid kuma ducaysan kartid qur-aanku ma akhrisan kartid mas'aladaasi masale xadgudub iyo ictidaa iyo adiye iyo dulmi ah weeye qof jiran ma jiifi karo ilmo ma jiifi karo waayeel ma jiifi karo sabab qolaa masaajidka ku tukanayso ila soo jeed baa la yidhahda makarafoonada marka waa aan arday ahayn nin magaalada hadda jooga annagoo meel guri degan bay hurdadii ka tagtay hurdaa ka iman weyday wuuna toosiyey marka kawda habeennimo 7 saac habeennimuuna jafay soo farfadhiisay war maxaa jira marka dambe wuxuu yidhi hurdaa iga iman la hadii maxaa dhacay ila soo jeediyey marka ila soo jeeda warni waa seexanay nadaad war wallaahi intaan seexataan soo jeedaydan jiifaydii ani hadda hurdo waayo waa ila soo jeedaysaan hadda makarafoonadeenna ila soo jeed baa la dhahaa waranu waa cajisnahay waa yeel baanahay ilmaan ahay inaan yar jiifaan rabaa labada habeennimaa lagu qabanayaa makarafoon ilaa salaada subax ila soo jeed waayo ila soo jeedii waxaa dheer ama ii imo ama shaqo la'aan ahaw qur-aan ha akhrisan makarafoonkiibaa daaqadda kaaga soo gelaya salaad ha tukan ha ducaysan tasbiix akhrisan ma qur-aankii baan dhegaystaa waxaa la yidhi idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu aamusoo dhegaystaa la yidhi haddii aan iskaba diidoo tukan dhaho waxaan akhriyayey iyo waxaan ku ducaysanayay maba garanayaba saan qur-aan u akrisanaysay adoo kaa la akhrinayo baadi sarkii wuxuu dhan kaa gedmaday mas'aladaasi waxaa dheer iyagii masaajidii dadka maalmaha 10ka dambe bannaanka ku tukanaya miday la rukuucaan ma yaqaanaan makarafoonkaasay ku rukuucaan markaasay ku rukuucaan allahu akbar ka yidhi waa kee midka allahu akbar yidhi kaasa waxaad arkaysaa dad safaf oo masaajid ku tukanayo masaajid kale la rukuucaya ama iyagoo sujuudsanaa masaajid kale la soo toosaya ama taxiyaadkay u fadhiyeen assalaamu calaykum masaajid kale la leh mayow sidaasi ma saxna way khaldan tahay marka taraawiixaha la gaadho sida saxda makarafoonka bannaanka dadka in laga damiyo wey ciddii bannaan ku sheekaysan ciddii bannaankeeda ganacsan ciddii guriga ku ducaysan ciddii qur-aan aqrisan nabigana sal alay slam wuxuu ka dardaarmay xilligiisii qayb ka mid ah baa masaajidka koox koox loogu kala tukan jiray qolaalkaa ku tukata qof keligii ah 2 3 wada tukata 2 wada tukata markaasaa qur-aankay kor loo qaaday nabigu saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi laa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qolkii qaarkiin qaarka kale yeena qur-aanka kor ugu akhriyin ood haddaad kor u qaaddo kaasi see u tukan kaasna see u ducaysan saa darteed qur-aanka waxaa loogu talagalay wa duuna aljahri min alqowli waayo dhawaaq dheeroo dadkii adiyada iyo ictidaha waa lagu dambaabi ajir laga heli maayo masaajidii kale markay kaa tukan weydo guryihii lagaaga tukan waayo lagaa ducaysan waayo maxaa xaajiya daruuro oo jirta intayni masaajkaan ku tukanaynaaye makarafoonka daafta kale ee magaalada iyo xaafadda bannaankeeda laga maqlayo maxay tahay faa'iidadiisu yaa la maqashiinayaa masaladaasi waa masalo khaladkeedu soo noqnoqdo 10ka dambayna u daran tahay markii labada hadhabeenne makarafoonada intii la wada shido kaa dariska la tahay aad ka weydo walaalow makarafoonka bannaanka naga dami maya ama ila soo jeeda oo ila soo tukada haddii kale iska farfadhiya guryihiina dhexdooda iska farfadhiya wey mas'aladaas waa dulmi iyo adiye iyo xadgudub lagu samaynayo dadkaa bannaanka iyo guryahooda jooga xuquuqdii cibaadada iyo dikriga iyo ducada iyo qiraa'aday lahaayeen